markii saddexaad oo gabagaba u ahayd fadhiyo tixanaha oo lagu soo gabagabeynayay eed ka dhan ah canshuur Cusmaan Abuukar oo magaciisa afgarashadu yahay Asad iyo Maxamed Cali Boorow Aadan oo isna la baxay Cabdixakiin ayaa maalintan lagu soo gabagabeeyay hoolka dacwad qaadista maxkamadda ciidamada qalabka sida ballankuba ahaa xeer ilaalinta ayaa la weydiiyay dhamaystirka cadeymaha labada eedeysane waxaana la guda galay dhageysiga baarayaasha hay'adaha amniga sida CID-da dhacdooyin ay ka mid yihiin qaraxyadii saddexda ahaa ee lagu laayay rayidka marayay inta u dhaxaysay CID-da iyo Hotel Saxafi dhinaca gadaale ee Saxafi iyo jihada kale ee saddexaad saddex xagalka dhulka u samaysan ee ku yaala number 4 dhulkaasi oo kulmiye dhismooyin ganacsi Hotel Saxafi Hotel Xayaad ayaa galab jimcaha oo mashquul badan jira lala eegtay qaraxyadaasi oo ay ka dhasheen dhimashada in ka badan 32 qofood iyo dhaawac 70 kale waxa uu ka mid ahaa weeraradii ugu xumaa ee dhacay inkastoo ciidamada amniga ee ku sugnaa xarumaha CID-da argaha iyo saamaha ee ilaalada Saxafi ay toogasho ku dileen kooxda macsaneed qaraxa kadib inay gudaha u galaan Saxafi oo 5 xubnood ka koobnaa Saliilu Sawaarim oo ah sida gawaarida loogu isticmaalo dilalka qorsheysanaya si isku mid ah uga fuliyeen degmooyinka Hodan iyo Xamarweyne goobtii markii aan tagnay amaanad gareynay isla markiiba waxaan ku soo aragnay falkii aan hore ugu soo aragnay digfeer oo dadkii dhibaataysnaa masaakiinta ku baabeen hubkii la mid ah qolfii la mid ah baawurkii inuu baawurkii yahay dadkii inay dadkii yihiin waxaana soo baxday baaris markii aan sameynay oo qobarada baarista oo CID-da aan si fiican dib ugu wareegsanay labada kiis inay hal qof ay geysteen inuu hal qori lagu geystay rasaasi fooqaqadii inay hal mid yihiin labada eedeysane ee la horkeena maxkamadda ayaa qayb ka ahaa qaraxyo lagu weeraray xarunta degmada Howlwadaag tiyaatarka iyo daljirka oo ah halka laga soo qabtay iyagoo ka degay gaari ay saarnaayeen kaasi oo ujeedkiisu ahaa in eedeysanaha labaad Cabdixakiin galaaftay inta uu gurmatay qaraxii hore ee tiyaatarka sida la ogyahay xarun degmo waxay u shaqaysaa bulshada iyo dadka maamulka deegaanka qaraxaasi dadka ku dhintay waxay ahaayeen badankooda boqolkiiba 90 dadka ku dhintay waxay ahaayeen dad qaxootiya masaakiina degmada laga caawinay laga siinay raashin ay reerkooda kula noqdaan dad soo qaxay deegaanadoodii abaar ka soo rartay dadkaas dad ku geeriyo waxa kamid ah yani xarunta degmada dirbigeeda ku hel dugsi quraan yani meel lagu barto diinta islaamka xeelaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare Cabdullaahi Buule Kamey ayaa ka codsaday garsoorka ciidamada qalabka sida hadda waxay taagantahay gabagabadii maxkamaddu intii ay maanta aragtay ayaa la hor keenay sidaa darteed eedeysanayaashu dambiga ay galeen waa kalsii kala culusiin ninka la yiraahdo Asad waa dilaa arxan daran oo aan naxariis lahayn hooyo iyo aabbe iyo carruur mid u aaba yeelayaan la arag dambiyada uu galay limit xad lagu qiyaasi kara lama arko sida uu maxkamadda horteeda ka qirtay sidaa darteed maxkamadda sharaf kale waxaan weydiisanaynaa in ciqaabta u qalanta labada eedeysane oo ah in la toogto ay maxkamaddu inuu ku xukuntaan waa billaahi tawfiiq dooda halkan waxaa su'aalo iyo difaac ku lahaa qareenada abukaata Farayara ayaa weydiistay garsoorka in dhaqan celin loo sameeyay labada eedeysane raalli kamihi oo ma jeceli dhibaatada qarax dhacaya laakiin qofti dhigtay ma la hayaa way qof Soomaaliya islaam oo nabadgelyo soo kacay in gardaro lagu dilo ilaahay ma banayn sharcigu ma banayn anagu raalli kama noqon karno maxkamadda ayaa looga fadhiyaa go'aanka labada eedeysane dhageysiga dood sharciyeedkii u dhaxeeyay labada dhinac oo kala ah xeeraarinta ciidamada iyo qareenada oo la xiriirtay eed dhanka ah eedeysanayaal canshuur Cusmaan Abuukar iyo Maxamed Cali Boorow intaas ayay ku dhan tahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saari doonto fadhiga maxkamaddana maanta intaas ayuu ku xiran yahay Cabduqaadir Ciise warbaahinta qaranka magaalada Muqdisho